wararka naga soo gaaraya degmada Galcad ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ciidanka Commandoska Danab iyo ciidanka Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay maanta la wareegeen degmada Galcad ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Ciidamada ayaa jihooyin badan ka galay magaalada Galcad ayagoona halkaasi ka sameeyay baaritaano lagu xaqiijinayo amniga. waa sida uu warbaahinta u xaqiijiyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Oduwa Yusuf Raage. Degmada Galcad ayaa waxaa todobaadyadii la soo dhaafay ku sugnaa Al-Shabaab oo la wareegay markii ay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay isaga baxeen halkaasi. waxaana haatan la soo warinayaa xaaladda degmada inay tahay mid degan iyadoo sidoo kalena ay gacanta ku hayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee degmada Galcad oo kamid ah degmooyinka muhiimka ah ee gobolka Galgaduud ayaa dhowr bilood ka hor markii ay la wareegeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxaa ka dhacay weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaadeen Al-Shabaab kaas oo uu ku geeriyooday taliyihii ciidanka Danab Xasan Tuure taas oo keentay inay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay isaga baxaan halkaasi.